maalinta qiyaamaha addoonku markuu dembigiisa fiiriyo waxaa ka soo qubanaysa ilmo malax iyo dhiig ah iyo rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. dembigan maanta nala fudud, dembigan maanta xaqiirkii waxyaabaha aan weyn u arkin, maalinta qiyaama markaasaa u fiiriso oohinta aad ka imaanaysa biyuhu markay dhammaadaan qiix iyo dam iyo dhiig waayabuu tilmaamayaa. markaasuu aqriyey yawma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara. waa maalin naf kasta ay helaysa wixii ay camal qabatay oo khayr ah asagoo loo soo xaadiriyey. tii wanaag samaysatay walaalayaal waa nafsadii khayrkii wanaagga ku dadaashay, waa tii rabbi ka baqday subxaanahu wa tacaala, waa midda dembiga ka carartay, waa midda rasuulku uu ku tilmaamay qofka iimaanka leh ee rabbi aaminay dembiga wuxuu u arkaa sidii jabal asagoo hoos fadhiya oo ku soo dhacayo oo ku soo dumaya oo kale, markaasuu ka cararaa. dembi markaad u aragto derbi hoostiisa adoo fadhiya gidaarkiina soo dumayo kugu soo dhacaya ma fadhinaysid, waa ka cararaysaa, waad ka degdegaysaa. sidaa darteed buu rasuulku xaaladdaa ku tilmaamay wamaa camilat min suu'in tawaddu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida. yaa soo haray waa tii xumaan samaysatay, waa tii qada iyo gef la timid, waa tii rabbi aan ka baqin subxaana. maalintaa waxay jeclaysanaysaa ayada iyo dembigeeda in la kala geeyo amad iyo masaafo baciid ah oo fog, ayuu yidhi ila subxaana wa tacaala. maantay fiican tahay, laakiin maantay nala gudboon tahay walaalayaal inaan ka fogaano. maantay qiimo badan tahay dembiga inaan la tacqiirsanin oon la yaraysanin. wayuxadirukum allahu nafsa wallahu ra'uufun bilcibaad. ilaahay subxaanahu wa tacaala nafsadiisuu idinkaga digaya. waa in dadku ay dadaalaan, waa in dunuubta loo arka walaalayaal in uusan yarayn, inuusan waaweyn, saqaa'ir ha ahaado, kabaa'ir ha ahaado, qofku inuu ka fogaan karo waa inuu isku dayaa. bani aadam baa la yahay, haddii dembi kaa dhacana waa inaad u degdegi kartaa tawbo iyo ilaahay noqosho subxaanahu wa tacaala. toobaan saxaabiga lagu magacaabo wuxuu yidhi, rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, waxaan garanayaa oo imaan doona qoomkaasoo ummaddayda ka mid ah maalinta qiyaamaha waxay la imaanayaan xasanaad aad u malayso buuraha tihaamo oo kale buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. xasanaadkii ay samaysteen, wanaaggii ay qabteen, salaaddii ay tukadeen, khayrkii ay ku dadaaleen, buuraha tihaama ayaad mooddaa culayska iyo badnaanta ay camalkoodu markaa leeyihiin. intaa ka bacdi ilaahay wuxuu ka dhigayaa habaa'an manhuuran, boor la firdhiya buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. sameeyey khayrkii camalkii fiicnaa ee buuraha tihaama la ekaa ilaahay waa tirtirayaa maalinta qiyaamo. ummaddayday ka mid yihiin, maalinta qiyaamahay imaan doonaan. ilaahay intuu u dhaqaaqo camalkoodii badnaa wuxuu ka dhigayaa boor la firdhiyey oo kale. faabaan wuxuu yidhi yaa rasuula allah, noo sifeey yay yihiin, noo tilmaan dadka noocaasa saanan oga mid noqonin. waa khasaare aad iyo aad u weyn. adoo xasanaad la yimid, adoo wanaag la yimid, adoo salaad badan sameeyey, adoo ictikaaf la yimid, adoo khayr ku dadaalay, camalkaagii la bitiyey oo la firdhiyey oo kasoo wax kasoo qaad oo aan jirin laga dhigay. tawbaan wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow noo tilmaan, noo caddeey yay yihiin saanan dadka uga mid noqonin. inaanan ka mid noqon ayaan doonaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. weliba toobaan wuxuu yidhi anagoon ogayn ayaa suuragal ah inaan dadkaa ka mid noqoneen. rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam, waa walaalihiin. waa kow, waxay leeyihiin jildigiinna oo kale, waa maqaarkiinna oo kale. habeenku waxay ka qaadanayaan saad uga qaadataan oo kaloo qiyaamkay u kacaan, khayrkii wanaagay ku dadaalayaan. laakiin waa qoom mar allaala markay khalwoodaan oo ay keligood noqdaan oo aysan markaa la joogin maxaarimta ilaahay ku xadgudbee dunuubta gala buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. in allaala intay ummadda u jeedaan, in allaala intay bani aadamku arkeen way iswanaajinayaan. yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl. waxay iska qarinayaan dadka, rabbina kama qarsoona subxaanahu wa tacaala. waxay iska qarinayaan dadka, rabbina kama qarsoona. wakhtiga ay ku habeen baryayaan
oo ay dhex gelayaan macaasida iyo xumaanta xaaladda noocaasuu ku tilmaamay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markay khalwoodaan markay qaali noqdaan markay keligood soo haraan yaa waxay ku xadgudbaan maxaarimtii ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala saa darteed walaalayaal aan dadaalno rabbi wanaaggiisii waxa uu noo diray aan samayno macaasida iyo dunuubtu aad yaad bay u dhib badan tahay walaalayaal in allaala inta laga cabsan karo oo laga fogaan karo oo laga dulqi karo ha lagu dadaalay ha laga cararo xaaladaasaa maanta aad iyo aad u qiimo badan wanaagsan waxaan joognaa